maalin kasta waxaad arkaysaa muslim meel dunida ka mid ah lagu dilaayo ama lagu dhibaateynayo. haddana Allah subxaanahu wa ta'aala waxa uu dhahay oo quraankiisa ku yiri muuminiinta ama muslimiinta ayaa macudnahay oo la jirnaa. haddaba su'aal ayaa isweydiin mudan muxuu Allah subxaanahu wa ta'aala muslimiinta maanta la dhibayo uu caawin waayay ama garab u siin waayay. laakiin jawaabtu waa basiid oo iska fududahay markaan waxa ku nabigeena caynay oo rasuulkeena ka soo horjeesanay oo Ilaahay caynay oo Allah subxaanahu wa ta'aala wuxuu naga reebay aan xalaashanay wixii xalaashana aan xaraan ka dhignay oo dhaanay Ilaahay ka baqimeenay ee yahuud ayaan ka baqaynaa oo loodi muslim oo meel fadhiyaana ay hoostaas ka gujinayaan oo hoostaas ay col ka yihiin wadanka gaalada ah ee leeriha tageynana aan tagnay oo aan ka dhignay wax lagu faano. markaas ayuu Allah subxaanahu wa ta'aala isna faraa ka qaaday oo caawinimadiisa iyo gargaarkiisina ka istaagsiis oo ka joojiyay. laakiin muslimiintii hore ama dadka hore wanaagsanaa Allah subxaanahu wa ta'aala amarkiisa ay qaateen wuxuu yiri ka hadhana way ka hadheen wuxuu yiri qaatana way qaateen. sidaas darteed ayuu Allah subxaanahu wa ta'aala iyagana u badbaadin jiray laakiin inagu ayaan ahay muslimiintii dhabta ah ee Allah subxaanahu wa ta'aala quraankiisa ku sheegay. marka qof markuu Ilaahay amarkiisa qaato iyo rasuulka amarkiisa qaato ayuu helaya gargaarkii asalka ah laakiin labadaas amarkooda ku soo horjeesto waxa gargaara oo Allah subxaanahu wa ta'aala marka ka sugo ma jirayso. tusaale fudud ayna siinaya wadgaraansa labada dagaalay waaweynaa ee caanka ah ee Badr iyo Uhud. Badr waxa guuleystay muslimiinta Uhudna waxa guuleystay muslimiinta. dagaalkii Badr Allah subxaanahu wa ta'aala muslimiinta malaa'ig ayuu ku xoojiyay oo malaa'ig ay la dagaalamaysay laakiin dagaalkii Uhud Allah subxaanahu wa ta'aala wax malaa'ig oo soo dirin iyo wax gargaara. sababtuna waxa ahayd in amarkii nabiga ay jabiyeen kontakinin ama kontakka asxaabi ee la saaray buurta. haddii aan sheego waxyaabaha sabab waayay in ay helno gargaarka Allah subxaanahu wa ta'aala way badan yihiin oo aad iyo aad ayuu badan yihiin oo ilaa barkow ka tahay marka ku dhaqmoynay kitaabka Allah subxaanahu wa ta'aala inuu soo jeediyay ee ku dhaqmo kitaabkaas ee inaguna dhahnay kitaab Allah dinteena ma oga.